السلام عليكم حرجينا إنad fiican tihiin meel walba iga daawanaysaan hadda maanta waxaan idinka sheekeynayaa sheeko aad u qosol iyo cabsi badan qosol iyo cabsi isku dhex jirta nin u dhashay dalka Masar oo Masaari ah baa wuxuu ku noolaa wadanka Imaaraadka marka wuxuu ka shaqayn jiray shaqo dawladeed subaxii ilaa iyo duhurkii kowda duhurnimo muddo markii uu ka shaqaynayay wuxuu go'aansaday dakhligiisa si uu u ziyaadiyo inuu ka shaqeeyo maadaama waqti firaaqa ah haysto wixii ka bilowda 2 ilaa iyo habeenkii inta uu ka rawaxayo taxi uu ku shaqaysto wuxuu soo gatay taxi muddo badan buu taxiga markaa ku shaqaysanayay muddo dheer markii uu taxila ahaa baa habeenada kamid ah waxay ahayd waqtigu wuxuu ahaa jiilaal qabow badan baa dhacay roobna wuu da'ayay isagana gaajo badan baa haysay marka horena jaakad muusan soo qaadanin marka wuxuu is yiri maadaama oo qabow aad u badan dhacayo roob da'ayo waqtiguna uu habeen iska yahay oo adigu iska feedback iska ahayd wuxuu yiri iska dheelmo gurigaaga iska aad iska cashee qabowga ka xarood marka wuxuu yiri waxaan go'aansaday inaan sheekada meel baan ka akhrinayay yaanan idinka hor dhicin sheekada meel baan ka akhrinayay waa sheeko dhabo dhacday ninkii ay ku dhacday baa ka sheekeynaya oo soo qoray yani la wadaagay dadka soo qoray soo gudbiyay wuxuu yiri waxaan go'aansaday inaan gurigayga iska aado anigoo sii socda wadada gurigayga sii haya baa waxaan arkay qof dumar oo laamiga dhinaciisa kala taagan meeshana wuxuu yiri gaariyaashu wuf bay ku dhaafayaan oo gaari istaagaya malaha marka waxaan sidii buu yiri shaqana ma doonay sida gurigaaga iska aad intaan markii hore damcaynaan qaada iyada cabaar markaan sii socda hadana waxaan isiri waa qof dumara waa waqti dambe roob baa da'ay qabow badan baa dhacaya waa kaligeed nina lama socdo ha ka tagina qaad marka waxaan qorsheystay inaan bilaash ku qaado hadii aan isku waday isku jahanahay buu yiri hadii kale ma aha hadii walba ma aha gaarigii baan dib u soo celiyay wuxuu yiri muraayadan dajiyay gaariga waxaan weydiiyay meesha ay u socoto waxay ii sheegtay inay degan tahay gurigayga agagaarkiisa isku wadana aan nahay marka waxaan ku iri soo gal gaariga marka sida caadada marka uu darwalku nin yahay qof dumarana soo fuulayso gaariga gadaal bay fuushay wuxuu yiri marka gadaal dambe ay fuushay waan iska soconay cabaar markaan soconay aniga naagtii aan gaariga wada saarnayn baa waxaan maqlay hadal gadaal ma fiirnina waxaan iyadaan la hadlo waxaan ku iri miyaad ma aniga ila hadlaysaa iimaysa jawaabin marka waxaan ismoodsiiyay buu yiri inaan anigu yaragam ay wuxuu yiri daal badan baa ihayayo maalinkii oo dhan baa soo shaqeynaya qabow iyo gaajo iyo daal iyo waxba isku galay waxaan isri malaha adaan dhax isku qabtayo u maleeyeen lagu la hadlayo cid kula ma hadlin marna waxaan isri biir waad ismoodsiisay almuhim wuxuu yiri horay baan iskaga sii socday hadana markaan xoogaa kala socday baa waxaan maqlay cod qof loo maaragtay loo hanjabayo baan maqlay cod hoose oo qof hadlaya qof kale u hanjabaya waxaan xaqiiqsaday inaanan anigu maaragtay markii hore indhahana isgashanin maaragtay qiyaasanin ee aan maqlay codkan uu yahay wax jira oo gadaal laga hadlayo kadibna intaan gadaal fiiriyaan ku iri yaad la hadlaysaa gaariga waxaa saaran aniga iyada bas qof kale oo saddexaad ma saarna telefoon wuxuu yiri waqti horena way ahayd waayadan dambe ma aysan ahayn telefoonada iyo waxyaabaha dhagaha la gashtay waxaas ay jiraan buu yiri ba waqti aad u hore ahaydba waan la yaabo waxaan ku iri yaad la hadlaysaa waxay igu tiri ana wuxuu yiri ka cabsi qabo la ilaahu rabbi raxmaan naagtaad aad soo qaaday isa kugu noqonin naag waalan waxay igu tiri hawshaada ma ahe adigu gaariga wad si kalsooni ku dheehan tahay bay ila hadashay saana wuxuu yiri alxamdulillah baan hoosta ka iri marna waxaan isdhahaa yiri way waalan tahay marna sida iigu jawaabtay markaan arko waxaan isdhahaa may way fiyowdahay gaarigaygaan iska sii waday hadalkii may sadeynin sidii bay maaragtay qof bay aan ogeyn bay maaragtay inta uu hanjabaysay wuxuu yiri guriga agagaarkiisa markaan maray gurigeedii ana wuxuu yiri ilaahay subxaanahu wa ta'aala baryayo ilaahu naagtan maaragtay meesha u socotay igaarsiyan iska dajiye baan gurigeedii soo gaadhnay gurigeedii markaan soo gaadhnay marka waxa ii qorshaysan markii horena qorshaygu ahaa haddana iga go'an tan waxba ka qaadanine adigayba shaki iyo khalkhal kugu ridi rabtaaye iska gaariga kaaga dagto kadibna gurigaaga hore u sii aad wuxuu yiri markii ay gaarigii ka dagtay si caadi ah uga dagtay daaqad ay furtay qiimihii lacageed ee meeshii aan ka soo qaaday ilaa inta gurigeeda laga gaarayo lagu tagi jiray bay siisay si qof caadi ah tabiici waxba ka khaldanayn wuxuu yiri markay siisay lacagteedii baan ka qaatay si tartiib ah waxaan uga codsaday albaabka dambe ay ka soo baxday inay xidho
maysa xidhin buu yidhi albaabkii dambe marka albaabkii maysa xidhine waxay la hadlaysaa buu yidhi weli marka lacagta isiisay kadib wax gaariga ku jira anna wax gaariga ku jira ma arko iyadaa iyo aniga unbaa gaariga fuulnay iyadiina way ka degtay albaabkii imaysa xidhan wuxuu yidhi wuxun bay la daldalmaysaa soo deg gaariga ka soo degta ku haysaa intaan xanaaqay reeraha masaarida la dhahana aad bay u xanaaq badan yihiin waxaan waxba ahayn bay ka xanaaqaanba mid waxaad arkaysaa meeshaa ku haya astaghfirullah yaa rabbi sabirni yaa rabbi sabirni oo dee maxaa waxbaba kuma haystaan maxaa lagu samirsiiyaaba marka wuxuu yidhi intaan xanaaqay oon gaari daaqada kasoo degay gaariga oon daaqadii xoog ku xidhay baan gaarigaygina xoog ku haysta iskaga tegay meeshii cabaar markaan socday gaarigii naagtiina meeshii bay taagnaydaan kaga tegay cabaar aan socday waxaan dareemay gadaal dambe culays baan ka dareemay kursiga dambe haddana culaysku wuu sii ziyaaday marba marka ka dambeysay markii dambe waxaan dareemay gaarigu inuusan culays awgii dhaqaaqi karinba hal mar baa waxaan bilaabay buu yidhi gaariga intaan cabsiba ay gashay buu yidhi kale waxaaban qiyaastay in wax gadaashayda aniga iga dambeeyaayey wuxuu yidhi uu dhuunta qoorta sidaa ii qabinayo ii ceejinayo cabsi badan baan dareemay buu yidhi aad baan u cabsaday naagtuna inay wax la hadlayso waan ogaa waxna aniguma arkaynin gaarigiina culays buu noqday cid ila saaranna ma laha gadaal ma fiirin kara buu yidhi haba ku sheegin gadaal inaan fiiriyo cabsida ahaysa awgeed gaarigii baan hal mar sidaa u kala wareejiyey wuxuu yidhi gadaal baan usoo noqday iyo naagtii balaayada ahayd meesha iiga degtay anigoo wuxuu yidhi sidaa wadnuhu ii boodboodayo baa naagtii gaariga agteeda soo istaajiyey naagtii meeshii aan kaga tegay bay weli taagan tahay buu yidhi kamaysa dhaqaaqan gurigana maysa gelin intaan kasoo degay gaarigii wuxuu yidhi anigiiyo dhididka iyo wuxuu yidhi isku daray ilmada isku daray buu cabsi awgeed iyo diif iyo ilmo iyo wuxuu yidhi dhididkaygiiba hal mar isqabsaday wuxuu yidhi qabowgaa dhacaya buu yidhi ila markaa cabsi dareentid wadnaha wuxuu yidhi adiga dhan waa dhididaaba gaarigii baan kasoo degay intaan u imid buu yidhi markii horena si wuxuu yidhi kulul baan intaan gaariga u xidhay xanaaq ku jiro baan ka tegay buu yidhi xanaaq baan kaga tegay markii dambena wuxuu yidhi intaan usoo noqday anigoo baryayaan kulna walaale macaan aan ku ducaynaya waxa baasee gadaal dambe gaariga aad ka saarteed kaga tagtay iga dejiso intaan jilbaha dhigtay buu yidhi baan tuugan ku yidhi in adeeray waxaas iga dejisaan ku duceeye naagtii wuxuu yidhi maba aysan ila hadlinba inay bini aadam inuu hadlayo iyo inuu yaanyuuri hadlayso adaaba sheegaysa wuxuu yidhi intay horteeda ka dhaqaaqday ninkii dhannaay wuxuu yidhi u jilba jabsaday baryayay in adeeray kaale wax iga dejisada ku hayay bay gaariga tagtay daaqaday furtay kadibna waxbay la hadlaysay soo deg kasoo deg gaariga haddaad kasoo degi weydo waxaad ogaataa inaan ku ciqaabayo wuxuu yidhi mar iyadaan fiiriyaa dhinaceeda marna waxaan fiiriyaa daaqadda waxaanay la hadlayso kursiga dambe oo maran bay la hadlaysaa mar iyadaan fiiriyaa marna waxay la hadlayso anigii wuxuu yidhi ilmadii iyo diifkii iyo dhididkii iyo waxbaasaa iskugu kay darsamay buu yidhi marmarka qaarna waxaan dareemaa dhulku inuu ila warwareegayo xoogaa saa wuxuu yidhi hal mar asay naagtii wixii ula hadlaysay baa gaariga booskaanada dambe albaabka dambe ee gadaal ah baa hal mar isfuray buu yidhi xoog isku furay anigii nuq kor baan u booday buu yidhi yab war gaariga uma ka carartaa xataa way i qabatay gaariga wuxuu yidhi waxbaa ka soo baxay wixii ka soo baxay anu markaa ma arko naagta waxay igu tiri waryaahe gadaal ha soo fiirinine hortaada fiiri sii jeedso hortaada fiiri raalliya nus baan ka ahay buu raalliya nus inaan horteeda fiiriyaba amba balaayadan meesha ka soo baxda inaan arka ma doonaya buu yidhiba uma dulqaadan kara buu yidhi horeydaydaan iska fiiriyey waxay igu tiri gaarigaaga gal markaan xoogaa hore iska fiirinay gaarigaaga gal dibna ha soo fiirin horey soco raalliya nus wuxuu yidhi gaarigaygii baan galay anigoo wuxuu yidhi sidaa gaariga aan isleeyahay haddaad maanta gaarigaas aad maarata shil la geli weydo weligaaba la geli maysid oo wuxuu yidhi cabsida iyo qalbigayga waxa kusoo degaya iyo fikrada saa isu dhaafaya iyo wuxuu yidhi aniga dhan aan xaalad kale ku jiro baan gurigaygii ku imid sidii gurigaygii markaan imid baan islaantayda intaan u tagay baa wuxuu yidhi sidii ilmo yaroo 2 jir ahoo wuxuu yidhi lasoo garaacay oo kale hooyadii ku baroortay waan wuxuu yidhi iskaga baroortay wabaa aflabadii yeelay war maxaa kugu dhacay waxaan uga sheekeeyey wixii aan la soo kulmay waxaan ku iri gaarigan guriga hortiisa ku baakin gareeyay gaarigaa dib dambe u fuuli maayo balaayaa fuushee waagu markuu baryana wax kataan meelaha ka raadinaya marka sheekada halkaasi ku dhamaatay muuqaalkan haddaad ka heshay oo halkan isla soo gaadhnay waan kaaga mahad celinayaa videogan haddaad ka heshay ama muuqaalkan fadlan suulka saar si aad noogu soo biirto oo nooga mid noqoto subscribe taabo wixii fikir iyo ra'yi isweydaarsiya qaybta hoose ee commentiga noogu reeb fadlan la wadaag muuqaalkan asxaabtaada iyo dadkaad garanaysid si dad badan channelka ay ugu soo xidhmaan oo u bato familkeenu wayna muuqaalka kan xiga insha Allah nabad iyo caafimaad baan idinka tagay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.